maxaad waxaanu maqalay somaliland waxay u imanaysaa soomaaliya iyagoo doonaya in la midoobo maxaad shuruud haysaan odaygu wuxuu ku soo adkeeyey wafdiga waa in shuruud lala yimaada intaan midnimada heli jirin markaa deeto markii aanu shiray waxaananu la nimid amba soo gudbinay shuruudda soo socota haddaan xusuusiyo annagu markaa yani powerka siyaasiga gacanteeda kuma jiro laakiin waa urur cid waliba dowladda ingiriisku ay taxgeliso dowladda soomaaliyeed markaa dabartayna ay taxgeliso dadka soomaaliyedna ay taxgeliyaan waxaanu shuruudda soo socota qodobkii u horreeyey wuxuu noqday haddii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed midaysani hadduu gees noqdo amba somaliland amba soomaaliya prime ministerku ra-iisul wasaaruhu waa inuu geesta kale noqdaa waa qodobkii ugu horreeyey qodobkii labaad wuxuu ahaa tirada baarlamaanku labada geesood waa inay isku mid ahaadaan 60 iyo 6 qodobka saddexaad wasaaradaha waa in si xaq ah oo qayb fiicana loo qaybsadaa iyadoo la siman yahay qodobka afraad haddii caasimaddu ay meel noqoto xataa maanu odhan muqdisho safaaraddii caasimadda timaadaaba waa inay qunsuliya caama ku yeelataa dhinaca kale jeyshka waddaniga ah waa in nin sarkaala oo labada geesood ka tirsani uu hogaamiyaa booliiskana sidoo kale yacni la qaybsadaa midna somalilan ay hogaamisaa raggeedu midna soomaaliya raggeedu uu hogaamiyaa shaqaalaha dowladda waxa aanu ku talinay in mushaharkii amba qiyaastii mushaharka la odhan jiray scales ay qaadan jireen xaggaana la geeyo waayo waxaanu ogaanay xagga soomaaliya koonfurta in mushaharku aad iyo aad u hooseeyey markii dabeeto ay barlamaankii u tageen barlamaankii somaliland odayaashii xisbiga iyo dowladda markay u tageen waxa ay barlamaankii ay caddeeyeen waxay yidhaahdeen ma doonayno inaanu wax ka hor yimaado taarkii aanu u diray samayn macnahu waxaanu nidhi biduun kayd oo shuruud la-aan baanu ku imanaynaa marka iminka anagu iyadoo caynka aanu nidhi iminkana shuruuddan ma doonayno inaanu idiin dhiibno markaas bishii abriil 15 ayaa wafdi loo diray muqdisho uu hogaaminayo maxamed ibraahim cigaal odayaasha kale la socdaana ay ahaayeen sida soo socota axmed xaaji ducaale oo ahaa ministry wasiirka tarawaadka dabiiciga ah cali garaad jaamac wasiirka howlaha guud xaaji ibraahim nuur wasiirka arrimaha bulshada waxaa kaloo barlamaanka ka raacay yuusuf iimaan maxamed cali faarax cabdilaahi maxamuud qablan muuse rabeyle aad iyo aad baa loo soo dhoweeyey markii ay tageen dadkuna u soo dhoweeyeen saaxiibadood baarlamaanku sheega ay u soo dhoweeyeen maalintii labaadba waa la fadhiistay oo shir baa laysaga hor yimid haddii aan tilmaamo geesta koonfurta amba soomaaliya waxaa chairmanka ahaa shirkaas aadan cabdul cusmaan oo markaa baarlamaanka u sareeyey cabdilaahi ciise oo prime minister ahaa maxamed sheekh gebyow oo ahaa wasiirkii arrimaha dastuurka maxamuud cabdinuur jintu lagu magacaabi jiray wasiirka howlaha guud iyo gaadsiinta maxamuud yuusuf aadan muuro oo ahaa wasiirka tacliinta sheekh maxamuud maxamed faarax oo ahaa wasiirka cadaaladda xaaji bashiir ismaaciil oo ahaa ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir maxamuud aadan soobe oo ahaa ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo xaaji cabdilaahi mursal iyo sheekh maxamed isxaaq talaad
marka bisha 16 ilaa 22 yani abriil ayaa la fadhiyey. kaasi waxaa cumar carte qaalib. waxa isaga haddaba aanu arrintaysna ka waraysana ku saabsana isku darsiga labada dhinac. cabdilqaadir maxamed aadan soobe oo sidii cumar carte uu sheegayba ka mid ahaa guddidii ugu horreysay arrintaasi isugu timi ee ka wada hadlaysay ahaana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya. su-aasha aanu weydiinana waxa ahayd sida tan. cabdiqaadir waa tii la isku darsamay sidii imika aad lahayd saraaxadha loo wada hadlana dadka in wax badan laga qanciyay rabaan bini aadamku. markii la isku darsaday wax shuruudihii may jirin oo waa tii la israacay. soomaali weyn kalena waaba la sii doonay. maxay ku dhacday bay kula tahay adiga fikrad ahaan in koonfurta madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo madaxdii ciidamada intuba ay koonfur noqdaan iyo caasimadii? waxay ku dhacday waxa waaye condition ma jirin. conditionkii la rabay in la keeno somaliland yani waa iska dhiibtay marka wax shuruuda lagu xiray ma jirin. conditional jira iyo qabiil baan nahay iyo kanaan nahay iyo midna ma jirin. waxay leedeen nimid waa kaas loo taliya. jamhuuriyaddii soomaalida ee dhalatay wixii ugu weynaa ee barnaamijka u noqday waxay ahayd sidii loo rumayn lahaa soomaali weyn. dhibaatada arrintaasi ay lahayd ma ahayn mid dowladdii soomaalida ka qarsoonayd. ra'iisul wasaarihii ugu horreeyey ee labadii gobol ee midoobay ay yeesheen oo ahaa cabdirashiid cali sharmarke allah u naxariiste oo arrintaasi marka hadlaya waxa uu yidhi nasiib darrada nahaysaa waxa weeye in waddamada afrika ee deriska aanu nahay ee ay tahay inaannu ka shaqayno kor u qaadidda xidhiir saaxiibtinimo iyo nabadgelyo oo na dhex mara inaana ahayn kuwo iyagu deris ama jaarka noo ah. wax deriska iyagu yahay soomaali aanu wada dhalanay oo dhalashadoodii ay ka been sheegtay soodinna aan loo miidaandayin. waxaanu wadaagna habnololeed dhaqan iyo diinba. markaasi sidee ayaanu walaalahayo uga dhigi karnaa dad shisheeye ah? 29 bishii abriil sanadkii 1961 ayuu cabdirashiid ereyadaasi ku dhawaaqay. haddaba cumar carte qaalib oo muddo dheer ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ka horna ahaan jiray danjiro soomaaliya dibadda oo fadhiya waan wax ka weydiinay dhibaatada soomaaliya ay kala kulantay dalalkii kale ee afrika marka ay timaado soomaalidu dhulka ay sheeganayso. waxa uu cumar yidhi markii istiqlaalka la qaatee soomaalidu ay midowday waxa markaa dowladihii markaa jiray ay ka dhigteen bartilmaameed siyaasadda dibadda in la xoreeyo dalalkii kale ee soomaaliyeed ee maqnaa. waana la xareerayey bilxaqiiqa. isbahaysi baa dhacay yani annagana la xareerayey yani soomaalidii la xareerayey iyadoo dowlad yaroo markaas soo koraysa ah ayaa cidhiiri weyn la geliyey. addis ababa waxay noqotay xaruntii jamciyaddii afrikaanku ay samaysteen madaxda afrika OAU. boqor xayle salaasi wuxuu ahaa nin caana nufuudna ku leh adduunka. waxaanan odhan karaa qaraarkii madaxda afrika ay gaadhay ee OAU-da ku soo baxay magaceeda isagaa ka dambeeyey ee la yidhi waa in xuduuddu sidii isticmaalku uga tegay ay ahaataa. carte qaalib qaybtii afraadna intaa ku dhan tahay sidaa iyo nabadgelyo. sidaa aad barnaamijkeennii kan ka horreeyey caawee taariikhda soomaalida qarnigii tegey aad ku maqasheen waxa dhacday oo hirgalay midowgii somalilan iyo soomaaliya. markii isku darsadkiiuu yimid ayaa markiiba waxaa isla markiiba yimid oo barbar socday dareen u badnaa dhinaca somalilan oo ay ku soo bandhigeen heeso iyo ruwaayado. inkastoo midnimo dhaqan ay lahayn labada gobol haddana waxa kaleeto oo jiray dhibaatooyinna oo ka mid ahaa baa layidhi dhaqamo dhinaca maamulka oo laga dhaxlay dowladihii kala gumaysan jiray sida uu buuggiisa lagu magacdaray modern history of somalia uu ku qoray professor im lewis. dhibaatooyin kale ayaa sidoo kaleeta jiray kuwaasi oo ay ka mid ahayn inaanay jirin markii u xumaa oo aan laami ahayn oo haddii damacdida inaad ku safartid oo aanay wax kale kuba qabsanna ay kugu qaadan jirtay ugu yaraan 3 maalmood. kadib haddaba markii uu bururay xiisihii ay isku qabeen labada dhinac dareemo u xoog badnaa reer waqooyiga oo isweydiiyey isku darkii inay ku khasaareen iyo in kale ayaa yimid.
waxay taasi si fiican u soo shaabaxday markii saraakiil ciidamada ka tirsan oo reer waqooyi ay ku kaceen afgembi dhicisoobay bishii Disembar sanadkii 1961. markii arrintii ay ka fashilantay ayaa maxkamad la saaray. haddaba barnaamijkeenna caawa ee soo socda ayaa waxaan ku bilaabanaa sidii ay ku dhammaatay dacwadii lagu soo oogay saraakiishaasi. Cabdilaahi Kongo oo ka mid ahaa saraakiishaasi ayaa waxa uu noo sheegay in sida ay dacwaddaasi ay ku dhammaatay isaga oo marka hore ku bilaabaya muuqaalkii maxkamadda. waa kan Kongo. maxkamaddu waxay ahayd horta waxaan ku sheegi karaa riwaayad bay ahayd. waktigaana laba sharci baa waddanka jiray. sharciga ingiriisku wuxuu jiray xagga waqooyiga, sharciga talyaaniguna wuxuu jiray xagga koonfurta. sharci soomaaliyeed oo labada isku daray ma jirin. labada sharci mid waliba wuxuu leeyahay jurisdiction, xad buu gaari karaa, xukunkiisu gaari karaa. marka bani aadmi waa inaan lagala bixin. shakliga kale ee foormaha maxkamaddu ahaydna waxay ahayd dacwad ku-ooguhu wuxuu ahaa talyaani. nimankana daafacayay hindi bay ahaayeen. luqadda meesha socotay anagu aanu ku hadlaynaa soomaali bay ahayd. marka bal adigu maxkamadda mahzaladda intaa maxkamad laga hadlayo adigu bal imaajin gare. maxkamadduna runta waxay ahayd fadaaxad bay u ahayd nidaamka siyaasiga. markii way nagu heli kari lahaayeen hadday mutiny nagu qaadaan. laakiinse waxay yidhahdeen maximumka la beegsada oo dilisa. annaguna markaa waxaanu isku daafacnay, waxaanu caddaynay horta waxeeda waxaan la yidhahdo jumhuuriyadda soomaaliya inaan sharciba ku dhisan inaan jirinba. ayaa ku doodayseen? yaanu ku doodnay. waxaanaanu nidhi challenge garaynay xukuumaddii bal inay keento wixii laysku raacay, sharcigii lagu mudoobay. leanno laba act of union baa jiray saad u ogtahay waddanka oo draft of act of union ah. labadii act of union ciidamo kama hadal. kaleen waxay nala beegsadeen articalka ugu 121 baa la yidhaahdaa oo Indian Penal Code ah. waa dil. constitutionkii waddanka markaa lagu dhaqayeyna court martial ma ogola ilaa waqti dagaal mooyaane. markaa dee constitutionkii iyo Indian Penal Code baa la yidhi iyamaa sarreeya, iyamaa labada leh afdaliyad. way iswaafaqi waayeen. keebaa la raacay baa markaa waa in constitutionka la raacaa. markaa sidaasaynu uga baxsanay maxkamadda caskariga ahayd. kaleen kayska daciista waxay ahayd anagu rag militarian ahayn oo u dhaarsan Queen Elizabeth. boqorada ingiriiska u dhaarsanaydenba? boqorada ingiriiskan u dhaarsanay. dee cid damboona dhaarisay ma jiro, cid kaleanu u dhaaranay mama jirinba. kuwinkiin aan u dhaaranayna iyada kayska nagu soo ololisay, nagu soo oogtay maaha. republicii markaa joogayna waatan hore kugu sheego dee wax jira